kormeeradan shaqo ay maamulka degmada Buurtinle ku gaareen deegaanka Faratooyo ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshayaasha horumarineed ee maamul baahinta degmada waxaana ujeedka socdaalka Faratooyo ahaa ka qaybgalida munaasabada isbeddelka guddiga deegaanka Faratooyo oo xilligoodii dhamaaday maamulka hore ee shaqayn jiray isla markaana dadka deegaanku ay soo magacaabeen guddi cusub waxaana halkaas golaha deegaanku goobjoog ka ahaayeen xil wareejintii xogayaha dawladda hoose ee degmada Buurtinle Cabdinuur Timaweyne ayaa ugu horeyn dadka deegaanka kula dardaarmay inay deegaanka ku horumariyaan si isku tashiya horumarinta deegaankan Faratooyo waxaad ogaataan inuu idinkeedu ku xiran yahay annagu waxaan ka taraa waxaad ka siin karnaa gacan ka siin karnaa wax yar weeye laakiin fikirka iyo balaynka iyo qaabkii wax looga qaban lahaa deegaankan cidda laga sugayaa idinka weeye waxaan rabnaa sida degmadu ay u shaqayso maamulkeedu oo isugu tashado haddii ay bilic tahay haddii wadooyin la saaro tahay haddii canshuur la qaado tahay haddii ay tahay qashin iyo nadaafad magaalada bilicdeeda la nuuro ay tahay sidaas oo kale inaa u shaqaysaan baan rabnaa iyadoo wax khilaafa aysan jirin haddaad soo dhisteen aad baan idinka mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inaad deegaankan canshuurta ka hirgelisaan deegaan ma shaqeeyo hadduusan canshuur lahayn sidoo kale gudoomiyaha cusub ee deegaanka Faratooyo Axmed Cabdullaahi Faarax ayaa codsaday inay la shaqeeyaan dadka deegaanka ee soo doortay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa raggii hore oo ka shaqayn jiray deegaanka Faratooyo oo gudoomiyihii hore iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo xildhibaanadii hore rag qiimo leh oo aad iyo aad sharafta maanta laga wada warramayo oo dhismaha iyo bilicda Faratooyo ayaga aad iyo aad ayaga soo hoyay annaguna waa la shaqaynay aad iyo aad baan ula shaqaynay annaguna sidoo kale inay noola shaqeeyaan baan ka doonaynaa ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Buurtinle Maxamed Maxamuud Buurdibe ayaa dadka deegaanka ka ballan qaaday inay maamulka degmada la shaqayn doonaan waxaana ay golaha deegaanku dhagax dhigeen xaruntii ay ku shaqayn lahaayeen maamulka deegaanka Faratooyo maamulka cusub ee heer tuulada Faratooyo gudoomiye xil baa lagu saaray waxaa laga rabaa sidii lagu saaray inaad u soo gudatid adiga iyo golahaaga iyo xogayahaaga inaad hormarisaan tuulada si hawlaha aad leedihiin idinku qabsoomaan inaad qorshe cad la timaadaan kaasoo ah mid loogu banaynayo wadooyinka sida hadda codsateen runtii hami fiican baa idinku jira tuulooyin badan baanu booqannay intaan hadda xafiiska joognayo maana arag tuulo ka hadlaysa wadaan rabnaa inaan falanno hamigaas aad wadataan insha Allah waan ku guuleysan doonaa annaguna waan idin garab taaganahay wixii hiil iyo hooba ah waxaanu dhagax dhignay xaruntii maamulka tuulada Faratooyo oo ah maamul hadda la caleema saaray xilkan la wareegay waxaanu rabnaa maamulka inaanu dhisno xaruntan oo ah xaruntii maamulka ku shaqayn lahaa waxaan u mahadcelinayaa mulkiilihii baxshay dhulkan Axmed Aadan Xirsi Axmed Caato oo run ahaantii nin wadaniya mawaadina laga yaqaan deegaankan waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo innaga ka maamul ahaanane iyo golihii deegaanka oo ila jooga dhamaantood waxaanu ballan qaadaynaa inaanu u qareyno dhisno dhulkaasi suura gelino si degdegana uu ku hawlgalo maamulka cusub ee tuulada Faratooyo guuleysatid jaamac warbaahinta dawladda Puntland deegaanka Faratooyo ee degmada Buurtinle